halkani waa saylada ugu weyn geeska Afrika oo ku taala magaalada Burco, Somaliland. saylada Burco waa mid ka mid ah suuqyada xoolaha ugu waaweyn ee ku yaala geeska Afrika, gaar ahaan gudaha Somaliland. waxay door muhiim ah ka ciyaartaa dhaqaalaha dalka iyo tan wadanka guud. saylada magaalada Burco waxaa qiyaas ahaan ama celcelis ahaan maalintii ka dhoofa 10 ilaa 20 kun oo neef oo iskugu jira geel, ari, lo, ido iyo riyo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي وسعيد سلمان. waxaan ka shaqeeyaa magaalada Burco, gaar ahaan marna gaaraan la socodna waa shaqeeyaa. waxaan soo kacay 3 habeenimo. hadeerna waa 7. marka ilaa inta soo shaqeynayay noloshayna lacagta ugu bandeed bay soo gashay oo ah dhowr boqol kun. marka dadka tahriibayaasha ee dalka ka tagayeen wax leenahay war dalkiina qaniya. marka gabayar ma raacinayaa waxaan duniya yahay dhaqan ee dhammaan dhoofka qabanaysa duniya yahay dhaqan ee dhammaan diinta dhigan weeyay duniya yahay dhaqan ee dhammaan dhamaha loo dhib. markii aan dhex maray dheeg kasta weegay isku dhacan kii dhudi qabiye ka dhabaaya isku dhacantay dhurwaa dhiin jiray yaay dhaqaa warniyo wadankiina qaniya leeyahay. marka nin walba shaqas ani waana ba agaarki doonta laakiin meehi qof shaqaysanayaan shaqadana ceeb ma waana salaama. بنت لازم إيقلا يحلى إيلا لوجودنا لا بنكي ولا بنت وديبانه saylada Burco waxaa laga dhoofiyaa xoolo kala duwan oo ay ka mid yihiin geela, looda, idaha iyo riyaha. laqwiyo dadba bent laasim إيقلا يحلى إيلا لوجودنا بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan joognaa suuqii weynaa ee xoolaha suuqa xoolaha ee magaalada gobolka Togdheer Burco. xoolihiin ma sha Allah si wanaagsan loo kaybsanayaa wana la kaybsaday saabirigu waxa ugu wanaagsanaado seeblayaasha maxaan idhaahdaaye iska caabinta cid waliba suuqa loo kaybsaday ma xaqii qabadka arigu waa ka wanaagsan iyo doo ariga yar inta la leegayska magalaha uun bay naga qabanayaan magalaha halka ku jira arigi markaas uu amaan u yiinayna waxaan leenahay ilaahay ha loogu mahadnaqo khayr ilaahay hayna siiyo. marka anaguna hadaanu dilaalintiinahay gobolka Togdheer xoolaha iibin jirtay waan ku mahadsannahay oo shirkadaha aad wax looga iibsanaya waxaan bashashiyo barwaaqo xukuumadda cusubna waxaan leenahay si wanaagsan iyana nolol shaqeyso xoolaha meel suuq dhaamaha u doonto.
لفكني برتي بسم الله الرحمن الرحيم xoolaha waa la iibsanayaa iibkoodu wuu wanaagsan yahay maxay haytooy sixirkooduna wuu sareeyaa aad buu maashaalaysan yahay alxamdulillaah rabbil caalamiin aad baan loogu mahadsan yahay reer miyiga aad baa xoolahoodii ku qaaligaroobeen waa laga iibsanayaa way u soconayaan maxay haytay dalkeennu waa wanaagsan yahay xooluhu aad bay u wacan yihiin maasha allah tabaarakallah ganacsigana wixii kale aanu wadnaana waa lagu soo biirayaa waxaan ku yidhi waa wadnaa insha allah khayr wanaagsan baanu rajaynaynaa wax wanaagsan baanu rajaynaynaa insha allah bismillaahi kariim iyo caafimaad نبكى عاشقي يقول لي قورنا هيقول لي تشينو هيقول لها كيمو xoolaha laga dhoofiyo seylada burco waxay u kala baxaan suuqyo kala duwan kuwaasoo ay ka mid yihiin sacuudi carabiya gaar ahaan xilliyada xajka imaaraadka carabta yeman mararka qaarna waxaa loo dhoofiyaa waddamo kale oo afrika ah sida etoobiya ama jabuuti si loo simarsiiyo بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم waxaan halkan ka salaamayaa bulshada Soomaaliland meel ay joogtaba waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh waxaanu ku jirnaa nimco aad iyo aad u fara badan waxaanu haysanaa nimco maasha Allah shisheeye sokeeyaba la martiyayo ilaa cawriba laaw maasha Allah tabaarakallah ilaahay dalka iyo dadka iyo ragga iyo ciidanka iyo caalanka iyo dawladda iyo bulshada iyo caruurta intaba Allah noo barakeeyo maasha Allah tabaarakallah godolkiiyo gaadiidkii baa taagan xooli baa la kala iibsanayaa waa dekadii labaad Soomaaliland burco waa dekadii labaad wax qabad wacan bay u baahan tahay in la adkeeyo amniga in wixeeda la qabto godol iyo gaadiid uu taagay nabad iyo nimcaanu ku jirnaa maasha Allah madaxweynaha waxaan u sheegaynaa maayir kasta iyo xildhibaan kasta burco way hagradaan in loo hagaajiyo gobolka iyaga togdheer in loo hagaajiyo laamiyada haddii ba dhaqaalaha iskuullada haddii ilaahay ku reeyo waxbarashada in loo tayeeyo in haddii ilaahay ka dhigo korna loogu qaadan doono waayo waa xuduntii Soomaaliland waa xuduntii xooluhu ku soo degayeen assalaamu calaykum madaxweynaha salaam baan u dirayaa aad iyo aad u qiimo badan mudane madaxweyne waxaan kuu sheegayaa ducaanu kuu faraynaa kuu soo diraynaa ducadaasi waxa weeye xilkaad qaaday Allah kugu gudoomiyo waa kugu nabadgasho waa kugu taakuleeyo waxaana xuduntii qurahayd ee Soomaaliland kulankii la isugu imanayay amnigu uu sugan yahay nabadu way hagaagsantahay ilaahay kugu guuleeyo cimrigaagana لوفكن هذه برتين ونلولي محال لوفكني برتين لوفكن هذه برتين ونلولي محال لوفكني برتين dhammaan way salaamayaa meesha waa ku wacanahay waan ku wanaagsannahay xoolaha socon baa loo iibsadaa xooluhu waa qaali arigu aad iyo aad buu macan yahay aad buu shilis yahay faa'iidooyinka dhaqaale ee xoolaha 1 dhaqaale ayaa soo gala xoolo dhaqatada waxay helaan suuq weyn oo ay xoolahooda ku iibgeeyaan dad badan ayaa ka shaqeeya sayladda ganacsato shaqaale kuwa raraya dhaqaatiirta xoolaha iyo wixii lamida kuwaasoo ay u noqoto shaqo abuur dowladda hoose ayaa iyaguna ay ku soo galaan dakhli oo ay ka helaan cashuuro iyo adeegyo kale
باب انت لاسمه يقل يحظى إيو لا ذوق وددان سيدي يارلو ما اللي درح راعيا سيدي قيل طلبان واللي عيا لا بعيو محالة في اللوذيسا والله قالوا يقصون وقاري لفتواصل جعيلكو كل بحر هم الأولي محل أفكاني بردين لفكان هذه بردين هم الأولي محل أفكاني بردين لفكان هذه بردين هم الأولي محل أفكاني